maanta waxaan saxaafadda u imi arrin loo baahan yahay dhammaanteen inaan si wada jira wax uga qabanno, dhammaanteen aan si wada jira ugu istaagno dowlad iyo shacab. arrin maanta u baahan inaan ahmiyadda koowaad isaga siino, arrin qof damiir Soomaalinimo uu ku jiro, damiir Islaamnimo uu ku jiro, uusan daawan karin, fiirsan karin, kana aamusi karin. arrinkaasi waxa weeyaan waxaynu ognahay in waddanka ay saamaysay abaar aad iyo aad u ba'an, abaartaas oo xoolihii miyiga ay aad iyo aad haraad iyo biyo la'aan iyo baad la'aan ay usii dabar go'ayaan, dadkii reer miyiga ahaana ay macluul ay qarka u saaran yihiin inay u leedaan. innaguna ka Soomaali ahaan waxaynu ku tiirsannahay waxa weeye waa miyiga, waxaynu ku tiirsannahay waa xoolaha, waxaynu ku tiirsannahay oo isheena dhaqaale uu yahay, oo weligeena ay soo jireen ahaana in dhaqaale inuu ku ahayd waxa weeyaan waa xoolaha miyiga weeyaan. haddaynu dhammaanteenu ka wada mashquulno xoolihii miyiga oo maanta sii dabar go'aya, xaggee ayaynu Soomaaliya u soconnaa? waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaan dowlad goboleedyada in gurmad degdega lala gaaro dadka walaalaheena oo miyiga jooga iyo xoolaha sii dabar go'ayo haraadka iyo biyo la'aanta usii dabar go'aya, oo runtii dhammaantii aynu wada arkayno shaashadaha iyo telefishinada aynu ka wada daawanayno in xoolihii ay cidlo haraad ugu daadanayaan, haraad ugu bakbaktiyayaan. arrintaasu arrin qof damiir Soomaalinimo ay ku jiro uu ka aamusi karo maaha. waxaan qof walba oo damiir Soomaaliyeed uu ku jiro aan ugu baaqayaa in arrintaasi degdeg in loogu gurmado. waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed in gurmad degdega, gurmad qaran in loo fidiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen, oo xoolaha sii dabar go'aya laga gaaro, oo aynu xooggeeni iyo cududeeni waxaynu iskugu geynay waa doorasho, waxaynu hanti lahayn, waxaynu maal lahayn. waxaan leeyahay yaan doorashada keliya labada indhood lagu fiirin, ilna doorashada aan ku fiirino, ilna aynu ku fiirino xoolaheena miyigo sii dabar go'aya. waxaan ugu baaqayaa mar labaad siyaasiyiinta hoggaanka dalka u tartamaysa oo raadinaysa in ay maanta ay fiiriyaan miyiga dhibaatada ka jirta, abaarta dalka ka jirta. ugu dambeyntii waxaan si khaasa aan baaq ugu dirayaa fariin madaxweynaha dowladda federaalka, ra'iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka iyo madaxda dowlad goboleedyada in arrintaa ay si gooniya ina u fiirshaan. mas-uuliyad baa dalkayni ka saaran in arrintaasi degdega in loogu kaco ayaan qof walba oo Soomaalinimo ku jiro, ama qurbo joog ahaadeen, ama ganacsato ahaato, ama culimaa udiin ahaadeen, arrinta abaaraha waa in si degdega gurmad degdega aynu u galnaa. xoolihii iyo baadkii xoolihii aad ba usii dhammaanayaan, dhammaanteenna waa wada fiirsanaynaa. ugu dambeyn waxaan fariin khaasa u dirayaa madaxweynaheena dowladda Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Deni, oo aan ugu hambalyeynayo sida wanaagsan uu dardarta u gashay xildhibaanada aqalka hoose golaha shacabka ee federaalka. mudane madaxweyne, waxaan fariin aan kuu soo marinayaa halkan, taasoo ku aadan inaa golahaaga wasiirada, hay-adaha gurmadka qaabilsan iyo wasaaradaha ay arrimahan qusayso inaad amar degdega siisid. dalku wuxuu u baahan yahay in aad iyo aad loogu gurmado dadka reer miyiga ah. xoolihii waa sii dhammaanayaan, aad iyo aad bay usii dhammaanayaan. in laga gaaro gurmad degdega dadkeena reer Puntland, dadkeena Soomaaliyeed, in gurmad degdega la galo. madaxda dowlad goboleedyada iyagana sidaas oo kale baan baaq ugu dirayaa. cid walba oo mas-uuliyad dalka iyo dadka ay ka saaran tahay waxaa loo baahan yahay arrinta inaan si degdeg ah oo degdeg ah inaynu gurmadka ugu istaagno. waxaan sidoo kale aan fariin u dirayaa culimaa udiinka iyo imaamada masaajidada in roobdoon degdega in la ilaansho, inaan Ilaahay barino, in dadkan ay magaranaysa si loo roobdooni jiray in loo roob doono, oo masaajidada laga duceeyo, culimmadu ay kacdo, Ilaahay aynu barino. hay-ado qaramo madoobay cid waxayna la gaari karin, cid aynu u baahannahay aan Ilaahay ahayn maanta ma jirto. maanta waxaynu u baahannahay waa Ilaahay, waxaynu maanta qacmaha u hoorsanayna waa Ilaahay. Ilaahay aynu barino, Ilaahay aan ku kalsoonaano, muwaafaqo khayrna Allah ina siiyo. inahaas ayaan maanta saxaafadda u imi. aad iyo aad baan ugu boogaadinayaa cid walba oo mas-uuliyadda dalka ay saaran tahay in barnaamijka gurmadka abaaraha ee dalka in si degdega in loo galo.